rag hubaysan oo aan haybtooda la garanayn ayaa xalay 9kii fiidnimo weerar ku qaaday meherad ganacsiga ku taala bartamaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal halkaas oo ay rasaasayn xooggan oo muddo socotay ay ka dhacday waxa falkaasi ku dhaawacmay 4 qof oo iskugu jira dad xogsata ah oo meherad horteeda ku sugnaa iyo dad shacab oo goobtaasi ka agdhawaa agaasimaha guud ee dhakhtarka weyn ee magaalada Boorame Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed ayaa warbaahinta uga warbixiyay dhaawacyada la soo gaarsiiyay dhakhtarka sidoo kale dadkii ku dhaawacmay falkaasi ayaa ka hadlay kaliyaani waxay soo gaaray 4 qof oo dhaawac ah 4 qof labo 3 qof aad buu fududiin midna waa iska dhaxdhaxado kulay laba boodis isku martay jiireysay waa inta ka badan ma jiro inta waxa xagtiin yar oo macna lahayn وانا ما تقانا waxaan abuuray iska wada baxay guriga soo tagaa waxaan ka ahay daawac ilaa imsadii soo tahay kulay xalay saacadii markii bilowgii baa in waqtigu wuxuu ahaa saacad toos baa leeyay markaa laakiin adu war online meelaas waqti wax bilaabeen meelaas sagaaladii baa baan mareynaya markii warsi xabado dhacay kadib qofkii warsaarta la geeyay soo hadlay markii waa asaas ku yimid inta kale loo joogay wada yimaadeen ma ambulance-ka dhakhtarka lagu soo qaaday mise mid kasta ay kulay ni walba si loo soo dikaan loo soo kaliya horta dhaawac waan oran karnaa dhaawac xagsaba waxbuu qabaa waa ka weeyaan isagana waxa weeyaan xiid weyn oo go'ay oo liina ma jiro laf jabtayna ma arkaynin kulay sawirka loo dirnay magaalada joogka sawirkiisu galay laakiin eegistii wareysano waxaankaasi looga muuqanin muruqay dhaxmartay muruqina waa la qabtay wala tradigi waa waxaanka haduuna wax jabi ku soo bixin wax weyn u baahanaya ma jirto maqalkii horeeyba anada way qabsatay dibina daba saacay marada saacada sahal ana markaa way jawga ma goob dagaal bay noqotay meesha dagaal goob dagaal oo xabado aad bay dhacay inay istifaaciyeen iyo in la weerar xabtuuraaysi saabo kala cadeynay markaa laakiin meesha goob dagaal bay noqotay gebigeedii dadkii suuqay wax noqdeen iyaga weerarida dhaxaga soo waayo lagana anada dadku sahal heedo daba iska dhigay la cararo marka ma ka war haysaa xaaladii bakhaarka iyo dadkii ku sugnaa inay wax soo gaareen waa kan dhaawacii inaan halkan sariirtan jeefaa dadkan wax ka sarreeftay buu ka mid ahaa hadda marka ku sugnaa sariflaha dhexdiisa ku sugnaa si kastaba ahaatee ciidamada ammaanka ayaana goobtaasi soo gaadhin markii falkaasi dhacay waxaana beddelkoogii ku soo xoomay dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorame dhinaca dawladda gudoomiyaha degmada Boorame Maxamed Xuseen Meydhane ayaa dhacdadaasi ka hadlay horta wax walba oo iska dhacaan caalamka oo iska dhacaan maalin kasta wadamada ugu nabadgelyada badan lama oo ka dhaca waxay faldambiyad iska dhaca maalin kasta faldambiyadku laakiin sida loo buunbuuninayo maahay wax wiina maahay inay deeqolo iska budhacdo maalin kasta dhibi way dhacdaa tii dhibti dhacaysa uma taas ahayd wax balaayo nabadgelyada degmadeedu waa taam aad iyo aad binu wanaagsan tahay dhacdadani ayaa ku soo beegmaysa xilli gudoomiyaha gobolka Awdal uu ka maqan yahay gobolka waana falkii ugu horeeyay ee lagu bartilmaameedsado goobaha ganacsiga ee ka dhaca magaalada Boorame iyo guud ahaan gobolka Awdal Qadar Maxamed Xasan Labaqayle Som News Boorame